meeshaan aan waqtigan ku suganahay waa mid ka mid ah wadooyinka ugu weyn magaalada Dar es Salaam ee waddanka Tanzania. waddankan ayaa wuxuu ku jira doorasho oo maartay dadka xisbiyaal kala duwan ka imaadeen oo musharaxiinta meel kasta waxa lagu arkaa sawiradooda oo meel kasta ku dhijiyeen ay gawaarida ku dhijiyeen dalbiyaasha ay ku dhijiyeen si marka ay u soo jiitaan dadka codkooda dhiibin doona taariikh 25 bishan tobanaad oo codkooda ka dhiibin doona meel kala duwan ka tirsan waddankan dadka siyaasadda indhayna ayaa waxay sheegayaan siyaasadda waddankan ka tirta maanta inay isbedeshay oo in marka ka duwan tahay siyaasadda ka jirtay waayii hore oo xisbigii waddankan soo xukumi jiray konton iyo 4 sano oo la soo dhaafay si sahal uu ku qaadan jiray doorashada laakiin safartan kadib marka ay isbeesteen xisbiyaal badan oo mucaarad ahayeen oo marka xisbiga la magac baxay Ukawa ay la imaadeen waxaa la sheegayaa dadka siyaasadda ay sheegayaan in xaaladda marka ay aad ugu adag tahay xisbigii waddankan ka soo talin jiray laakiin marka la gaaro taariikh 25 oo dadka muwaadinka ku nool waddankan ay u bareeri doonaan goobaha laga codeeyo ayaa la kala ogaan doonaa xaaladda dhanka ay u badan tahay waqtigan ganacsigu iska socdaa xaaladdu waa iska caadi wax kasta caadi bay ku socdaan waa bashkaas dug soo dhacay oo jooga magaalada Dar es Salaam waddanka Tanzania